goorsan daawadayaal waa mar kale iyo wararkii xuliyo xaqiiq qodobada maanta waxaa ugu waaweyn haddii aan la idmo wadahadaladii colaadda Ukraine oo dib u bilaabmay iyo jahwareer soo fool saaray dowladda Kiev sidoo kale wadamo ku howlan ka gaashaanka colaadaha ka ololaya qaaradda Yurub taariikhdu waa 28 March 2022 duco qabayaal mar kale soo dhawaada waxaa toddobaadkan dib u bilaabmaya wadahadaladii halraadinta colaadda Ukraine kuwaas oo ka bilaabmi doona magaalada Istanbul ee dalka Turkiga maalinta aroorta wadahadaladan ka hor waxaa soo ifbaxaya jahwareer ku gadaaman xukuumadda Ukraine madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa wadahadaladan mar uu ka hadlayay maalintii shalay sheegay inay heshiis u dhow yihiin oo xukuumaddiisu aqbali doonto qodobada ruushku wataan ee ku aadan gobolada bariga Ukraine iyo arrinta dhexdhexaadka in Ukraine ay qaadato saacada kadib wuxuu madaxweynaha Ukraine mar kale ka hadlay mowqifkooda ku aadan wadahadaladan isagoo markan sheegay in arrinta dhulka Ukraine ay tahay lama taabtaan waraysigan oo uu siiyey suxufiyiin ruush ah kuna baxay luuqadda afka ruushka ayaa intooda badan warbaahintu ku tilmaameen in qadiyadda xukuumadda Zelensky ay hadda tahay mid ruxmaysa colaadda Ukraine ayaa si weyn looga dareemayaa qaaradda Yurub waxaana dowladaha wadamadaas ku howlan yihiin sidii ay uga gaashaaman lahaayeen dagaalada hadda ka holcaya qaaradda Yurub dowladahaas waxaa ka mid ah dowladda Jarmalka oo u diyaar garoobaysa sidii ay u sameyn lahaayeen handaab difaaca oo gantaalo ah kuwaas oo laga dhigo dhammaan soodamaha Jarmalka arrintan waxaa ka wada hadlay hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz iyo kormeeraha sare ee ciidamada militariga Jarmalka General Eberhard Ozon mashruuca ay mas'uuliyiintani ka wada hadleen ayay sheegeen in uu yahay mid ku kacaya lacag ka badan 100 bilyan oo euro mas'uul kale oo ka tirsan kooxda miisaaniyadda difaaca dalka Jarmalka ayaa isagu sheegay ama yiri waa inaynu nafaheena ka ilaalinaa khatarta ruushka inaga imanaysa si dhaqso ahna waxaynu u baahannahay difaaca ama gaashaanka ballaaran oo Jarmalka oo dhan ah Andreas Schwarz oo isna ka tirsan guddida difaaca wasaaradda gaashaandhigga Jarmalka ayaa sheegay in difaaca gantaaladan ula eeg tahay in ay ka soo iibsadaan maamulka Israa'iil difaacan waxaa loo yaqaanaa Iron Dome waana mid awood u leh in uu qabto gantaalada isla markaana hawada ku qarxiyo si kastaba ha ahaatee barnaamijkan waxa ay mas'uuliyiintani sheegeen inuu howlgeli doono sanadka 2025 warkan maanta daawadayaal ee xulli xaqiiqa waxa inoo soo diyaariyay Mukhtaar Aadan Dheere oo ah tafadiraha Alool Media TV ee Jarmalka inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono jabi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa ammaan Allah